السلام عليكم واتم هوينيدا uusan ninka wiligiisa iloobi doonin haweeneydu ugu horeysa uusan ninka iloobi doonin waa haweeney caqli iyo xikmad badan waa haweeney si wanaagsan u dhaqanta oo aan ku degdegin xukuumada arrimaha soo wajaha isla markiiba go'aan ma gaarto ilaa ay ka degsato go'aankeeduna waa kuwa boqol hagaagsan haweeneyda xigta waa haweeney galgacal badan waa haweeney u naxariisata oo dhinaceedu amaan ku dareemo markay dhibaatooyinka nolosha iyo walwalka soo food saaraan markuu dhinaceeda fariisto naxariisteeda ayaa hilmaansiisa haweeneyda saddexaad waa haweeney qanacsan waa haweeneyda mar walba ku qanacsan awoodda maaliyadeed ee ninkeeda weligeedana kuma nacdo daciifnimada awoodiisa maaliyadeed haddii ay xumaadaan kumana cusleyso dalabkeeda badan balse waxay ku taageertaa dhibaatooyinka markastana waxay qorsheysaa sida ay dhibka soo wajahay ula qaybsan lahayd haweeneyda afraad haweeneyda dulqaadka iyo samirka badan waa haweeney u dulqaadata markuu xanaaqsan yahay iyada oo la xanaaqi karta ayaa haddana ereyada naxariista leh ay shucuurtiisa ku dejinaysaa waxayna gelinaysaa xaalad degnaan ah waxayna u adkaysanaysaa isbeddelka nolosha ee mar walba soo wajaha haweeneyda taageerta waa haweeney dhiirigelisa mar walbana horay u sii riixda waxayna kordhisaa kalsoonidiisa taasoo ka muuqata horumarka seegeeda ee shaqadiisa iyo noloshiisa oo dhan waa haweeneyda kaliya ee nolosha ninka mas'uulka ah si kastuu ula kulmo iyo si kastuu u arko dumar kale ma laga yaabo inuu ilaabo gabadhan oo kale haweeneyda fahanta waxay fahantaa aamusnaantiisa iyo hadalkiisaba waxayna ku dadaashaa inay ka farxiso oo ay aad u ilaalisaa dareenkiisa